هذه بعض ما فهمتها عشور horta cashuur kordhis waxa weeye cashuurihii dalka u yaalay ee dhowr iyo 10 ahaa oo intooda badan aan la qaadin ayaa waxa baahi loo qabaa in qaarkood la soo celiyo in yar baha laga bilaabay in ay dadka Soomaaliyeed u bartaan in wadankan ay dhaqaalihiisa sare u soo qaadaan oo waxyaalaha fara badan ee dibadda inooga imanaya aan ka kaaftoono oo aan dib u soo celin dhaqaalaheena sida daraadeed cashuurta gadista leedaa ee ku dhacda laba cashuurooda gadista jiray cashuurta gadista ee ku dhacda qofka soo alaabta weyn keenay wholesaleerska leedaa afka Ingiriisiga cashuurta ku dhacda ayaan ayaan jireynay cashuurtaas waa 5% laakiin hab iska xal masuur sidan Soomaalidu ku sheegta ayaan xataa u sameeynayo shantaas kuma wada dhacaan meel laba talabaad cuntooyinka bariiska iyo burka iyo saliidda iyo baasto iyo waxaasanaya wada cashuurba male waxyaalaha kale waaweyn telefoonada iyo qalabyada kale iyo kuwaas ayaa shantaas iyo waliba xal masuur la sameeyay aad iyo aad hoos loogu dhigay ayaa la soo saaray waxaana loo baahan yahay dalku inuu barto inuu sida adduunyada u noolaado oo isku filaan gaaro isku filaan waan ka fognahay isku filaan gaaro waaye taa weeyaan taan ka hadlayna goormaad bilowdeen qaadisteeda waxaan bilownay waxaan filayaa sanadka bishan labaad afartii shantii meel ay ahayd baan malaynayaa marka waqtigaas ayaa la bilaabay laakiin munaaqashada iyo wada hadalka iyo wada xaajoodku wuxuu ka soo bilaabmay bishii shanaad ee sanadkiina dhaafay si ay dadka Soomaaliyeedna ugu bislaadaan dadka bixiyayaasha cashuuruna ugu bislaadaan marka waqtigaas soo bilownay in badan baan shirnay oo ka shirray oo aan hataa iska rabnay adduunyada waxa laga qaaday wadanada agagaarkeena iminka budgetkeena hadaad eegto dalkan Soomaaliya oo dal weyna iyo dalalka agagaarkeena hadaad isku qiyaas dhigto yani wax aqliga keenaya ma waxay noo dhaxeeya marka dadku waxay leeyihiin xaqna way leeyihiin maxaad noo qabanaysaan beelay maxaad noo qabanaysaan waa xaq laakiin maxaan ku qabanaa bal meesha taamar dawladina asalkeeda waxa weeye dad isku tagay oo lacag iska ururiyay oo yiri waxa in common kaanu leenahay waxaan wada leenahay dad iyo waxaa noogu qabtay yiriyo dad la shaqaalaysiiba anagoo dadku ay yiraahdeen waxa anagu aanan kaliya qabsan karin oo wadooyinka iyo iskuulada iyo xidhanada askariyiin dad noo qabta mushaaradan anaga ay idinayna waxa lagu qabanayana ilaa dawladdu lacag kala ma haysatee dawladda qiimaha waxa dadkeedu siiyo wari dawladda qiimaheedu waxa weeyaan dalkeedu halku gaarsiiyo weeyaan waaye dood miyaa ka furan in saamigaas canshuurteed qaadaysan inuu inta ahaada iyo inuu ka hoos maro waxaan ganacsatada qaybo kamida waxay lahaayeen way nagu badan tahay marka dood ma ka furan tahay in hoos loo dhigo walaalow dood waxa weeye oo kullayba albaabadayada iyo koodiga way isku furan yihiin imikadan wada hadayna maanta waa shir baa lagu jiray meel walba shir baa lagu jiraa waxaan u baahanahay inaan isqancino anigu haddaan idhaahdo ilaah baan idinku dhaariyay shaarka $20 saara hadeegada shayga $100 wax ka yar saara waxaasi wax munaaqasho u baahan aniga ilama eka hadii ba ku roon yahay wax dal loo dumiyana ma aha wax meel loo xidhxidhana ma aha ilaahay intaan ka yaabna dalkan dibaan ula soo noqon dhismihiisa innaga iskale cid kale oo waxay noo wadaysaa ma jirto waxa kaloo lii sheegay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxa la yidhaahdaa haddaad doonaysaan inaa adduunka la falgashaan waa inaad toos u socotaan oo aad xaal mastuurka iska daysaan oo kala goosashada iska daysaan oo afka adduunku ku hadashaan oo wixii laydin dhibay laydinku yimaadaa oo cashuuraha bixisaan wax iska bixisaan waxa markaa iska bixisaan ayaa annaguna haddaan aragnay idinkoo dadaalaya annaguna waxbaan idinku daraynaa ilaahay baan idinku dheeray maxaan aqbali karaynaa askartayda cuntada idinku naga bixiya oo askartayda mushaarkeeda idinku naga bixiya oo qoryaha idinku noo keena oo macalinka meesha ka shaqeeya idinku naga bixiya oo iskuulada idinku noo dhisa oo wax walba noo qabta meel dhacaysa adduunka ma soconayso waa laynagu daalay waa laynagu wareeray waxa layna leeyahay tufta ku soo dhaca oo itaalkiinana waa naqaanaa resourceskiinana waa naqaanaa waxaa Soomaaliya qaban kartaana waa naqaanaa nimayo waxa la leeyahay bini'aadanka 7 sano ayaad buurta ka dhacsanaydeen oo aan bari teegaarne soo ma garanaysaa idinkuna lugta hore iyo lugta dambe qaada hadaa qaadi weydaan waa idinka baxaynaa beelay waxa waaladan idinka xidhaynaa beelay oo baanakan idinka xidhaynaa beelay oo weliga yaa la yidhaahdaa weyno 6 bilyan ee ku leenahay maxkamadda ay soo taagnaa beelay
marka halkii ugu dambeysay buu wadankani taagan yahay ana ku sheegaya halkii ugu dambeysay buu wadankani taagan yahay marka waxa loo baahan yahay rag iyo dumar iskugu taga oo shilinka iyo sumuniga iyo wax walba soo tuuraya loo baahan yahay waa gartay haddii kale dalka far ka baxaya waayo doodo kale oo ay ganacsada qaarkood iyo dad kaleba sheegayeen waxay ahayd macnaa dowladdu xamar keliya ayay canshuurtan ku soo rogtay iyo ku dhowaad 30 sano lama qaadin canshuurtan jawaabtaada waayo jawaabteedu waxa weeyaan waa intaaba waan maqlay xaq waxay u leeyihiin inay yidhaahdaan cashuura hala mideeyo dal burburay baan nahay meel fog baan ka nimi diyaar baa loo yahay in cashuura hala mideeyo waan u sheegay maanta dhowr jeer wasiirada financeku way kulmeen mar garow way ku kulmeen mar dhowr jeerna halkan ay ku kulmeen mar waxay ku kulmeen Kismaayo imikada shir degdega ayaanu gelaynaa hadii ilaahay degdeg ma shir ka sii horeeyay shirka waaweyn ee madaxda waaweyn qabanayaan oo bisha 20 inta waxaan ka fikirayna waxa weyn cashuuraad loo meelina waxaan nasiib wanaaga maanta in la isla garanayo inaan khayraadkeena qaybsan karno hadda awal aan qaybsan karnaba la isla gaarin inaan qaybsan karno inaan cashuuraheena midayn karo iyo la isku raacsan yahay oo la wada fadhiisan karo in budgetka xataa la midayn karo budget kaliya baarlamaankeena kaliya aan leenahay federaalka loo keeni karo waxyaalo fara badan baa laga shaqeynaya laakiin marka aad eegto halkan ka nimi waan si fiican baan soo hana qaadnay arinta labaad ee cashuuraha ma garanayno anigu arinta waxaan kaga jawaabayaa weeyaan dadka baayac mushtariga ah ee really aniga madaxa ii saaran ee aan qiraya inay yihiin dalkan dadka isku hayay ay yihiin dalkan dadka isku haya waana iga dhab weeyaan meel kale badanna anigoo aan wasiir noqon waxba ahayn baan halkan ayaan ka sheegay aan ahayn wasiir xataa hore baan ka sheegay dadka Soomaaliyeed maanta dawladda hadii jirto dal haduu jiro waxa isku haya waxa weeyaan waxa kamid ah saddexda factor isku haya mid waxa weeyaan nimanka baayac mushtariga iyo laba factor oo kale hadii kale wadankan faruq kala raacay marka xushmadaan oo ay horta taa weey talabaad cashuur ma garanayna ma dhacayso dadka wax soo dhoofiya iyaga geeya muxuu ahaynaa iyaga Kenya geeya iyaga geeya Uganda iyaga geeya Tanzania ilaa iyo South Africa iyo Malawi bay geeyaan annagu waxaan leenahay cashuur waa garanaysaani walaalayaal kuwaad intaas siisaan rubuceed haddana siisaan wallahi abaal baan ku qabayna dalkana dalkeeni weey arbal waa kaas waxaad Nairobi siisaan isiya wuxuu ku odhani Nairobi waa ka sayf waxa kale naga qaadaya badan arrintan waan ka wada hadli karaa waa laga wada hadli karaa halkaaba waxba jira halkana waxba jira waa gartay laakiin cashuur ma garanayno waxa socon karaya ma cashuurta way garanayaan si fiican way u bixiyaan Soomaalidu dadka ugu cashuur bixin wanaagsan weeyaan Minneapolis marka laga soo bilaabo ilaa Johannesburg ilaa adduunka kale saasay u bixiyaan gasoline bay geeyaan cuntay geeyaan marka waxaan u maleynayaa anigu inaan soconayn in la yiraahdo cashuur dadkani way ilaabeen waaye marka 50% aad saarteen alaabooyinka jumlooyinka bal inta ay ka noqonayaan miisaaniyadda dawladda iyo dawladdu waxay ku qabsanayso iyo waxay muhiim idin ku tahay wax yar sharax waxa weeye horta 5% maanaan wada saarin runta haddaad eegtood aad kuleetriska gaar qaadato waa 1% weey 1% هذا waxa saaran sharcigu wuxuu leeyahay 5% 1% waxay ku tahay waxa weey imika waxa la cashuura waxa weeyaan jawaan yar iyo jawaan yar ama karton yar iyo karton weyn alaabta value-geeda baa leeyahay $100 haday tahay $100 afar meelood baa loo qaybin 25 ayaa shanta ku dhacaysa 5% waxba la aan weey ku dhufo adigu warqaas waa waxa weeye 25 senti weeyaan baan umaleeyahay hadaan kaba yaray 25 kaas oo lagu dhuftay shan lagu dhuftay bay noqon halkii 100 value ka ahaa hada wixii kumaankum ka ahaa afar meelood baad u qaybin waxa weeye 20% waxaan doonaynaa inaan dhinaca ka soo yareyno dhinacan shantu ay 5% isuleedaas ka ahaato si aan u qancino adduunyada kale nala sharciina ku dhufta oo iska dhaaf baxal mastuurkan lamsamo alaabtaas intaasan ku siinay qaadada ayaan doonayna inaan dhinaca kale ka soo yareyno marka waxa ku dhacaya 5 ma waa 1% waataan ku sheegay waxa weeye shaarkii ahaa $20 afar baa la cashuuri $4 yaa laga soo qaadi value-giisu yahay $4 baa shan lagu dhufan waxa laga hadlayaa waa inta weey haday badan tahayna waa inta haday yar tahayna waa inta waxa kale meesha ku jira waxa weeye budget baynu leenahay budgetka aan leenahay wuxuu ku sargo'an yahay in aan soo kicino dakhliga si aan adduunyada ula tisqaadno si laynooga daayo deymaha faraha badan le ee curyahay laynagu leeyahay 5,000 milyan baa laynagu leeyahay 5,000 milyan iyo badh baa laynagu leeyahay adduunyada waxa la yiraahdaa lacagteeda nasiya
haddaad doonaysaan inay ka daynana oo idin furo amaha kale oo deeqa kale idin furo wax walba oo laynaga curyaamiyey waxyaalaha qabta dawlad wanaagga maaliyaddu kow bay ka tahay daahfuraantu kow bay labay ka tahay inaan dakhliga ururino dadku inay serious yihiin la ogaado inay dadkan ka go-an tahay inay cashuuraha iska ururinayaan in la ogaado iyadana way tahay marka budgetkeena waxaa ku jira meelo inay loo baahan yahay inaan gaadhno ya oo gaar ahaana sales taxka cashuurta gadista in la qaado oo 5% waxaa la diidan yahay waxa weeye in dukaankiiba $20 iskaga qoro ama meeshii furanba wax lagu qoro adduunka wax meel ka socotaa ma jirto joojiye baa la leeyahay adduunka haddaydan joojinayn waxba ha nagu darsanina weeyaan waxba ha nagu darsanin lacag ayagana nasiya ama idin siin mayso deeq idin siin mayso waxa miyaynu ku socon karaynaa kuma socon karayna marka budgetkeena ya muxuu ahaa ayaa u baahan in cashuurta waxoogaaga yar la saaro la soo ururiyo marka maxaad ku qabanaysaan lacagtan su-aashaan hore ku weydiiyey waaye lacagtaa waxaa lagu qabanaya waxaa ka mid ah in waxyaalahan adduunyada kale inaga bixinayso kasoo taagan yihiin aan inagu iska bixino anigu always exampleka muxuu tusaalaha aan haystaa waxa weeye inaan wax soo saaraan rabnaa inaan sonkorteeni soo celinaan rabnaa inaan banaanaheeni adduunka wanaagsan soo saaraan rabnaa muuskeeni inaan soo saaraan rabnaa inaan beero qodanaan rabnaa inaan badda wax ka soo saaraan rabnaa laakiin haddaanad security-gaagii sugin waxaad samayn kartaa ma jirto weyn iska wada ogna security-geeni maalin boqolba amniga dadka amnigan ka hadlaya ciidamada faraha badan ciidamada asluubta ka mid yihiin ciidamada sirta iyo arrimahaas ka mid yihiin ciidamada qarabka sida ka mid yihiin booliiska mid yahay ciidamada mushaharkoodii haddaynu all the time cid kale wax ka sugno mushkiladeeda ay leedahay inaan in yartaa ula soo wareegno horta weeyaan inaan cuntadoodii la soo wareegno weeyaan inaan macalimiinteena la soo wareegno weeyaan imaka macalimiina wax siina ma jirto sanadkan waa markii ugu horreysay baa 6 milyan loo qodeeyay iskuulada lagu dhiso iskuullada dawladda lasoo noqoto jaamacadda ummaddu wanaagsanaato afkii soomaaliga la hagaajiyo waxa distoorkeena inagu aynu dhisano waxaasoo dhan lacag baa ku baxaya waxaasoo dhan lacag baa intii hore waxay ahayd inaan adduunkana wax ka sugno maanta budgetka aan leenahay ee sanadka 2018 waxa ku jira waxaan kuu sheegay oo dhan baa ku jira caafimaadka wax loogu daro 2 milyan loogu daray oona wadhici jirin oo cusbitaalada lagu hagaajiyo oo cusbitaalo kale haddii la karayo lagu sameeyo oo ay dawladdu wareegto oo dadka faraha badan leh markay madax xanuunaba Nairobi iyo meelo kale tegaya in wax loogu qabto ya waxaasoo dhan ba inagu aynu u baahanahay in wax ka qaban way miisaaniyadaasina waxay ahayd 270 meelahaas ay ahayd Soomaa 270 weeye wax yar bay tii hore ka sareysaa laakiin waxaad inaad moogataan waxa weeye boqolkiiba 50 intaas meelaha laga sugaa hadday timaadana timid haddii kalena ma iman waxa important waxa weeye waxa qaybaha ay u qaybsan tahay miisaaniyaddu waxa jira bad dalka laga soo ururinayo iyo bad dibadaha laga sugayo iska mala awaalaho hadday doontana timaado hadday doontana aan iman meesha ku jira ma xaqiijin kartaa sanadkii hadda tagay ama intii aad dawladda ay xilka haysay in askarta dawladda tiradoodu intay doonto ha ahaato iyo shaqaalaha dawladda inay mushahar heleen dhammaan oo aysan waxba ka maqnayn miyaad xaqiijin kartaa siday ku doodaan madaxda qaar ka mid a dawladda maya sida anigaba maahe IMF report ay soo saaray baad arki kartaa waxyaalaha waxay ahayd conditionska ama waxyaalaha shuruuda loo baahan yahay geedi socodka cafinta muxuu ahaa waxa kamida inaan qof shaqaalihii mushaare waayin baa kamida